Jamhuuriyadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay dhaqan gelinaysa xeer hor leh oo xakameynaya dhaqdhaqaaqa ajaanibta soo galaya gudaha dalka sidoo kale ka baxaya xeerka ciidanka socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha Somaliland ayaa xeerkii ugu horeeyay ee madaxweyne ku-xigeenka reer Somaliland uu dhaqan geliyo iyadoo xeerar kale alaaba ay dhaqan gelin jireen madaxweynayaasha madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ah kusimaha madaxweynaha ayaa xeerkan u dhaqan geliyay in madaxweynuhu dalka uu ka maqan yahay isaguna uu hayo waajibaadkii qaranka ee madaxweynaha xeer lambar 109/2025 shantii bishii 10/2025 xeerkan ayaa sidoo kale xeerkii ugu horeeyay uu codeeyo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland tan iyo intii ay Somaliland jirtay haddaba xeerkan ciidanka socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteenan qodobada ugu muhiimsan ee ku jira kuwaas oo ahaa kuwa u baahnaa in lagu xakameeyo ajaanibta dalka soo galaya xeerkan oo ka kooban 94 qodob ayaa ka hadlaya aasaaska sharci ee ciidamada socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo ciidankani aanay hore u lahayn xeer madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo muddo ka yar hal sano xilka hayay ayaa dadaal iyo tacab geliyay muddadaasi sidoo xeerkan uu noqon lahaa ay yeeshaan ciidamada socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyadda Somaliland qodobada ugu muhiimsan ee xeerkan ayaa waxaa ka mid ah darajooyinka ciidankani oo markii ugu horeeyay yeelan doona sareeyo guud sareeyo gaas iyo sareeyo guuto sidoo kale waxa uu qeexayaa darajooyinka saraakiisha kala duwan ee kuwa dhexe hoose saraakiil xigeenada askarta iyo waliba nidaamka dalacsiinta darajo dhimista iyo anshax marinta ciidanka socdaalka diiwaanka guud ee ciidanka dhamaadka shaqada xubnaha ciidanka hanaanta anshax marinta saraakiisha sare ee ciidanka mushaharada iyo gunooyinka ciidanka howlgabka iyo daryeelka ciidanka nidaamka anshax marineed ee saraakiisha iyo shaqaalaha ciidanka abaalmarinta xubnaha ciidanka socdaalka awoodaha iyo waajibaadka taliyaha ciidanka socdaalka waajibaadka iyo awoodaha taliya ku-xigeenka ciidanka socdaalka shuruudaha magacaabista taliyaha iyo ku-xigeenka ciidanka awoodaha iyo doorka madaxweynaha doorka wasaaradda arrimaha gudaha ee ciidanka waxyaabaha ka reeban ciidanka socdaalka daryeelka hantida iyo qalabka ciidanka hubka iyo rasaasta ciidanka dembiyada ay galaan ciidanka socdaalku mas'uuliyadda dembiga iyo ciqaabista mas'uuliyadda dacwadaha madaniga miisaaniyadda iyo maamulka xisaabaadka ciidanka socdaalka ayaa intaasiba ay ka mid yihiin qodobada kala duwan ee xeerka cusub ee ciidanka xeerka socdaalku uu qeexiyo haddaba cutubka saddexaad ee xeerka cusub ee ciidanka socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa si cad u qeexaya imaatinka iyo joogitaanka dalka ee ajaanibta awoodaha ogolaanshiyaha iyo diidmada soo gelidda dalka shuruudaha codsiga ogolaanshiyaha dalkugalka ee ajaanibta noocyada ogolaanshiyaha ee ajaanibta habka ogolaanshiyaha imaatinka aan rasmiga ahayn ogolaanshiyaha u imaatinka dalxiiska ogolaanshiyaha u imaatinka jidmarka transit ogolaanshiyaha u imaatinka waxbarasho iyo cilmi baarista ogolaanshiyaha u imaatinka shaqo hanaanka dalbashada ogolaanshiyaha shaqo ee ajaanibta isbeddelka iyo dhamaadka shaqada ee qofka ajnabiga qodobadan guud ahaantood waxay ka tirsan cutubka saddexaad ee xeerka ciidankani waxaana si cad u cadeynayaan sida ajaanibtu dalka ay soo gali karaan waxaana ugu muhiimsan ajaanibta dalka u timid shaqada 7 cisho ka hor uu soo codsanayay fiisaha bixitaanka taas oo meesha ka saaraysa in qof ajnabi ah oo dhac ka geystay dalka gudihiisa uu si fudud dalka uga baxo sidoo kale xeerku waxa uu sheegayaa in qofka qof ajnabi ah ka shaqaysiiya si bilaa sharci ah ama qofka qof ajnabi ah oo bilaa sharci ah ama qofka ajnabi ah ee bilaa sharci ku shaqeeya uu mutaysanaya xadhig gaadhaya muddo 3 sano ah in qof ajnabi uu dalka ka baxo si fudud ayaa meesha ka baxday iyadoo shardi looga dhigay inuu 7 cisho ka hor uu soo codsado bixitaankiisa sidoo kale xeerku waxa uu qeexayaa waajibaadka saaran loo shaqeeyaha ogolaanshiyaha joogitaanka muddaysan deganaanshiyaha rasmiga ah shuruudaha deganaanshiyaha rasmiga deganaanshiyaha ama joogitaanka kumeel gaarka waayidda deganaanshiyaha rasmiga joogitaanka dad aan lahayn dal waxyaabaha ka reeban ajaanibta oo xeerkani qeexayo ayaa waxaa ka mid ah inay ka reeban yihiin dadka ajaanibta ee ku sugan gudaha Somaliland kicin abaabul gacansiin qalalaase iyo wax kastoo waxyeeli kara nabadgelyada bulshada oo la nool yahay iyo wadamada kale ee caalamka keenida soo dejinta sameynta iyo ka ganacsiga hubka iyo waxyaalaha qarxa ka qayb qaadashada caawinta ama gacansiinta iyo dhiirgelinta argagixisada falalka argagixiso ku hawlanaanta ama caawinta soo saarista beerista sifaynta dhoofinta soo dejinta kaydinta ka ganacsiga
haysashada iyo isticmaalka ama qaybinta maandooriyaasha nooc kasta uu yahay. xuquuqaha iyo waajibaadka qofka ajaaniibka ee xeerkani qeexayo ayaa qodobka 8 farqadiisa 3 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland loo cuskaday oo odhanaya ajaaniibta dalka Soomaaliland sharci ku jooga waxay xeerka hoostiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad la siman tan muwaadiniinta oo ay ka reeban tahay xuquuqda siyaasiga ee muwaadiniinta u gaarka ah. qodobka 6aad ayaa qeexaya goobaha iyo aagaga ka caagan ajaaniibta. wasiirka arrimaha gudaha wuxuu awood u leeyahay kadib marka uu la tashado ay isla gartaan wasiirka gaashaandhigga inuu soo saaro qodobo ka reebay ajaaniibka gelitaanka goobo leh soodimo sugan oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii ay u muuqdaan sababo macquul ah oo la xiriira dhinacyada ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo danaha qaranka. cutubka 4 ee xeerkan ayaa waxa uu qeexayaa dambiyada la xiriira arrimaha socdaalka. xeerkan ayaa mid ay Soomaaliland u baahnayd oo xakameynaya ajaaniibta dalka soo geli jiray isla markaasina ka geysan jiray falalka sharci darrada sida fududna kaga bixi jiray iyo ajaaniibta kale ee dalka Soomaaliland ku soo geli jiray sharci la'aanta. waana markii ugu horeysay ee muddo dhowr iyo 30 sano ay Soomaaliland jirtay xeer noocan ah uu helo ciidanka socdaalka iyo ilaalaha xuduudaha Soomaaliland kaasi oo u sahlaya inay gutaan waajibaadkooda shaqo.